Halkani waa Awale Official Channel. Ku soo dhawaada saaxiibayaal barnaamijkeennii ciyaaraha. Ciyaarihii xalay dhacay Carabao Cup-ka Man City ilaa Liverpool. Xiddiga khadka dhexe ugu fiican qaaradda Yurub oo la soo saaray 10 ciyaaryahan ee ugu wanaagsan. Sidee loo kala hormaray? Kooxda Atletico Madrid ayaa xalay la wareegtay hoggaanka La Liga. guushii goorta dambe ee ka heshay Getafe. Ciyaarta dhex mari doonta kooxaha Real Madrid iyo Mallorca. Ciyaaraha caawa soo dhacaya Carabao Cup-ka min Chelsea ilaa Manchester United. Barnaamijkan oo faahfaahsan daawasho wacan saaxiibayaal. Ciyaaraha soo dhacay horyaalada qaaradda Yurub waxaa ka mid ah La Liga. Ciyaaraha soo dhacaya caawa waxaa ka mid ah Espanyol oo martigeli doonta kooxda Alaves. Ishbiiliya oo marti qaadi doonta kooxda Valencia. Real Madrid oo qaabili doonta kooxda Mallorca. Villarreal oo la ballansan kooxda Elche. Intaasi waa ciyaaraha La Liga laga ciyaarayo. Ciyaaraha Serie A-dana waxaa ka mid ah Spezia oo martigeli doonta kooxda Juventus. Cagliari oo marti qaadi doonta iyaduna kooxda Empoli. Milan iyaduna la basho kooxda Venezia. Ciyaaraha laga ciyaarayo Carabao Cup-ka ee waddanka Ingiriiskana waxaa ka mid ah Brighton oo qaabili doonta kooxda Swansea City. Man United oo martigeli doonta kooxda West Ham. Chelsea oo la ballansan kooxda Aston Villa. Arsenal oo wajihi doonta kooxda FC Wolverhampton. Millwall oo la ballansan iyaduna Leicester City. Wolves oo qaabili doonta kooxda Tottenham. Man City ayaa waxay 6-0 ku garaacday kooxda yar ee heerka hoose ee Welcombe oo marti ugu ahayd Etihad Stadium, waxaana guushan gacanta u geliyay xiddigeeda Riyad Mahrez oo 2 gool dhaliyay. 4 gool oo kalena waxaa kala saxay ciyaartoyda kale ah De Bruyne, Foden, Torres iyo Palmer. Torres iyo Foden oo ahaa goolashoodii ugu horreeyay xilli ciyaareedkan u dhaliyay kooxda Manchester City. Kooxda Liverpool ayaa iyaduna waxay 3-0 ku burburisay kooxda horyaalka Premier League ee Norwich City oo ay horena ugu tunteen kulan horyaalka ka tirsanaa, waxaana guusha ka caawiyay Minamino oo 2 gool u dhaliyay iyo Origi oo goolka saddexaad isaguna dhaliyay. Xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Chelsea ee Nagle Keita ayaa si lama filaan ah loogu garaacay kaalmaha ugu sarreeya ciyaartoyda ugu wanaagsan khadka dhexe xilli dhawaan loo doortay laacibka ugu fiicnaa qaaradda Yurub. Kaalinta koowaad ee dhexda ugu fiican adduunyada waxaa wargeyska 442 u magacaabay xiddiga Man United ee Bruno Fernandes. Liiska xiddigihiisa ee kala sarreeyaan ayaa sidan kale ah. Kaalinta koowaad waxaa galay Bruno Fernandes oo u ciyaara kooxda Man United, halka kaalinta labaad la siiyay Kevin De Bruyne oo isaguna u ciyaara kooxda Man City. Kaalinta saddexaad waxaa galay Chouameni oo u ciyaara kooxda Chelsea. Kaalinta afraad waxaa galay Paul Pogba oo u ciyaara kooxda Man United. Kaalinta shanaad waxaa galay Marco Verratti oo u ciyaara kooxda PSG. Lixaadna waxaa galay Kimmich oo u ciyaara kooxda Bayern Munich. Kaalinta toddobaad waxaa galay N'Golo Kante oo u ciyaara kooxda Chelsea. Kaalinta sideedaad waxaa galay Ilkay Gundogan oo u ciyaara kooxda Man City, halka kaalinta sagaalaad galay Götze oo u ciyaara kooxda Bayern Munich. Kaalinta tobnaadna waxaa galay Marco Llorente oo u ciyaara kooxda Atletico Madrid. Sidaas ayaa majaladaas ugu qiimeysay inay 10 nin ee dhexda adduunka ugu fiican waqti xaadirkan ay yihiin. Kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa la wareegtay hoggaanka horyaalka waddanka Spain ee La Liga kadib guul soo laabasho leh oo ay dhammaadkii ciyaarta 10 ciyaartoy oo Getafe ah marti u ahayd ka gaadhay. Tababare Diego Simeone ayaa kooxdiisa halis ku jirta ayaa go'aansaday inuu xiddiga reer France Antoine Griezmann oo mar kale ku haftay inuu la yimaado bandhig fiican, waxaana lagu soo bedelay laacibka reer Brazil Matheus Cunha, halka la soo raacay isaguna beddelka ciyaartoyga reer Argentina ee De Paul. Geesiga Atletico Madrid u soo baxay wuxuu noqday Luis Suarez oo goolka barbaraha dhaliyay daqiiqadii 87-aad,
halka goolka badiskana uu raaciyay daqiiqadii 91aad sidaana guusha ku siiyey kooxdiisa. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa caawa garoonkeeda Bernabeu ku qaabili doonta kooxda Mallorca xilli ay kooxda Ancelotti raadineyso inay kusoo noqoto kaalinta koowaad ee horyaalka dalka Spain. Xidigaha weli ka maqan shafka kooxda Ancelotti waxaa ka mid ah Gareth Bale, Toni Kroos, Marcelo, Carvajal iyo Dani Ceballos. Kooxda Real Madrid ayaa 3 kulan ugu dambeeyay ee garoonkeeda Bernabeu kula ciyaarta Mallorca aan wax guuldarro ah kala kulmin, dhammaana ka wada badisay. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa caawa garoonkeeda masraxa riyada ee Old Trafford ku martigelinaysa kooxda West Ham ee ka dhisan cariga London. Ciyaar ka tirsan Carabao Cup ee laga ciyaaro waddanka UK, waqti labadan kooxood isbuuc gudihii 2 kulan wada ciyaarayaan, halka kulankii hore ee Axaddii ku dhaleen garoonka London Stadium ee kooxda West Ham, taasoo kooxda Man United goor dambe kaga badisay 2-1 kulan ka tirsan horyaalka Premier League. Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa fursad siin doona kulankan ciyaartoyda da'da yar ee ciyaartoyda aan fursad u helin inay ciyaaraan horyaalka Premier League, iyadoo la filayo in Ronaldo kulankan la siin doono. Sida ciyaaraha kale soo dhacayna waxaa ka mid ah kooxda Chelsea ayaa caawa iyaduna garoonkeeda Stamford Bridge ay kula ciyaari doonta kooxda Aston Villa, kulan ka tirsan Carabao Cup iyadoo weli ka maqan yihiin ciyaartoyda Crystal Brooks iyo goolwadeedii Edouard Mendy. Aston Villa iyagana waxaa ka maqan ciyaartoy muhiim ah ay ka mid yihiin McNeil, Truscott, Cash iyo Targett. Barnaamijkeennii ciyaaruhu intaas ayuu ka egay. Asxaabta nagu cusub fadlan subscribe saar, asxaabtii hore noola joogtayna like iyo share noogu dara. Mahadsanidin.